mid ka mid ah tagsiilayaasha magaalada Tromsø ee dalka Norway ayaa lagu soo oogay dacwad kufsi ah taa oo lagula kacay gabar 20 jir ah oo ku nool magaaladaasi dabayaaqadii bishii Abriil ee dhamaatay. qareenka booliska magaalada Tromsø Malina Sofia ayaa xaqiijisay dhacdadan waxa ayna intaa ku dartay inay arrintani si dhab u qaadanayaan oo booliska uga howlgalayo si mudnaan sare leh. eedeysanaha lagu soo oogay dacwadan ayaa iska fogeeyay in uu geystay wax kufsi ah waxa uuna intaa ku daray in uusan jirin wax uu qiranayo ama dambi uu geystay oo uu diidan yahay wax walba oo lagu soo oogay. waxa uuna sheegay in aysan sax ahayn dacwadda lagu soo oogay. Anita Berlin oo ah qareenka u doodaya ninkan tagsiilaha ah ayaa sheegtay in uusan qirsaneyn dambiga lagu soo oogay si taa lamidana uusan ku faraxsanayn in fal kufsi ah lagu soo eedeeyo. dhacdadan ayaa dhacday xilli habeen ah waxayna boolisku sheegeen inay rumaysan yihiin in ay ka dhacday gudaha tagsiga. qareenka booliska magaalada Tromsø ayaa sheegtay in tagsiilahan lagala noqday laysanka darawalnimada ee gaadiidka rakaabka dadweynaha si uusan tagsi u wadin inta uu socdo kiiskan iyo baaritaanadiisa. halka ay wararka ugu doorkaroon maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.